رئيس الوزراء حكومة الصومالية مدن محمد عبد الله محمد فرماجو maanta shir jiraad ku qabtay xarunta madaxtooyada Soomaaliya ayaa ugu horeyntii faahfaahin ka bixiyay guulaha isdabajooga oo ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa amisom ka gaareen dagaaladii ay kula galeen magaalada Muqdisho maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab isagoo dhinaca kale tilmaamay in ciidamada dawladda Soomaaliya ay dhulal baaxad leh oo waaweyn ka qabsadeen maleeshiyaadka kooxdaasi ra'iisul wasaare Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa dhinaca kale ku eedeeyay afayeenka golaha baarlamaanka Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan inuu gogolta siyaasadeed ku jiro isla markaana uusan u gudbin xubnaha baarlamaanka Soomaaliya qoraalo fara badan oo ay xukuumaddu hore ugu gudbisay ra'iisul wasaaruhu waxa uu hoos ka hareeqay in afayeenka baarlamaanka Soomaaliya uu marar badan diiday inuu aqbalo kulamo ay yeeshaan guddiyo ka kooban baarlamaanka iyo xukuumadda si loo soo afjaro isbarwaaga siyaasadeed ee ka dhex taagan hay'adaha dawladda afayeenkii baarlamaanku uma gudbin waa dambiga naftigeeda marka loo gudbiyo waxa la rabaa speakerku inuu u gudbiyo baarlamaanka uu yiraahdo arintan la keenay si laga yeelaa speakerkii wixiisii waa iska haystay ilaa markii dambe aan la soo baxnay hal sano dib in loo dhigo electionka bacdama aan xaalad adag oo aan dagaal ku jirno si aan qoladan khawaarijta uga adkaano waxaan u baahanahay hal sano markaas wuxuu yiri hal sano yay sheeganayaan awalna 3 sano yiraahdeen oo meelaha lagu soo qoro 3 bilood ay lagu qaadatay anaga inaan waa hadal la galno speaker waa diiday waxay noqotay wax shakhsi uu leeyahay waa 550 xildhibaan oo majority-gooda overwhelmingly intooda badan aan dhihi karo 90% ama 99 baan dhihi karo dad wanaagsan laakiin hogaanku uu sanahayn hogaan daacad u ah dalka iyo dadkaba maxaa yeelay hogaanka waxa la rabaa inuu wax walba ka dhex fiirin dantiisa shakhsiga ah oo ka fiiriyo danta guud oo yiraahdo macnaheedu waxa weeye inuu maskax furan yahay open mind uu yahay oo yiraahdo arintan bal dadka aan horgeeyo waxaan dalbanay bacdama aanan kalsooni ku qabin waxaan dalbanay in annaga guddi intaan saarnay isoo guddi keeno oo laba guddi ee wada hadasho oo wixii aysan noqon shakhsi iyo shakhsi wuxuu yiri maya waxaan rabaa inaan ra'iisul wasaaraha gaar ahaan u arko waxaan ku yiri shakhsi ma aha waxaan waa institution waa hay'ad dastuuriye guddiyadu has arkaan oo meel has la dhigaan afhayeenku ama speakerku waa diiday markay wuxuu rabaa wixii in uu luqluq ku dhameeyo iyo xaal masduur hadee danta qaranka iyo danta ummadda Soomaaliyeed xaal masduur lagu dhameyn karo waa inay banaanka taalo ay cadda runtii hadda wuxuu keenay hal sano inuu adduunka ku raaco annagoo ogoleen 3 sano laakiin xukuumadda hal sano loo dib looga dhigay electionka si hawshii loogu talagalay ay u qabato isagu hawl ma arko wuxuu arkaa dan shakhsi ah taasna waxa weeye waa wax shacabka iyo ummadda Soomaaliyeed u taala mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa xusay in 6 bilood ee la soo dhaafay uu baarlamaanka Soomaaliya kulmay oo kaliya muddo 3 jeer ah isagoo dhanka kale ku dhaliilay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan inuu furo fadhiyada baarlamaanka marka uu doonayo oo kaliya isla markaana uu doonayo inuu xukuumadda Soomaaliya kula gorgortamo in xubno laga siiyo 6 bilood soo dhaafay 3 jeer kaliya la furo xildhibaanadu waa rabaan inay shaqeeyaan laakiin haddii noqoto wixii hal qof wuxuu leeyahay haddii xildhibaanadii iyo shacabka Soomaaliyeed waa inay is arkaan marka xildhibaanada laga rabaa marka inay yiraahdaan anaga ummadaan u shaqeynaa shacabkan u hogaansanahay waa in la furo baarlamaanka uu shaqeeyo waxaan u dirnay ilaa 7 iyo 8 sharciyood iyo maxaan ku raahdaa legislation inuu baarlamaanka ka doodo lama horgeyn hal qof baa furaha iska haysta markuu rabo xirtaa markuu rabo furtaa shacabka Soomaaliyeed waxa la rabaa inay ogaadaan marka meesha dhibaatadu ka taagan tahay taas intaas kuma ekaanin wuxuu ku jiraa gorgortan xukuumadda in wax laga siiyo macnaheedu waxa way gorgortanku goormu yimaada gorgortanku wuxuu yimaadaa markii xisbiyo ay isdhinac ordayaan annagu hadda hal xisbi aan nahay marka isaguna ma aha majority leader ma aha waa shakhsi speaker ah maxaan ku yiraahdaa groupna wata majority leader ma waa speaker marka nin speaker ah oo raba inuu xukunkii u maroqsado haddii ummadda Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed waxa waajib ku ah inay ogaadaan inay ka cadoon sameeyaan inay maxaan ku raahdaa ay qayb ka noqdaan hawlaha siyaasadda oo socda ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa kula taliyay gudoomiyaha baarlamaanka inuu ka tanaasulo gorgortanka siyaasadeed maadaama ay xukuumaddu wax badan ka qabatay xaaladda Soomaaliya talada aan siinayo waxay tahay afhayeenka xilal waa soo hayay waa ka soo dhisay dawladihii hadda 2 sano ugu dambeysay adeega ummadda Soomaaliyeed ma aha in la qabto xil ma aha adeega ummadda Soomaaliyeed waxay tahay in qof walba uu xil iska saaro meesha uga haboon inuu wuxuu ka qaban karo ka qabto kursi la fadhiya ma aha inuu ka tanaasulo gorgortanka meeshan xukunkan waa shaqeeyay xaqiiqdii dadka ku jira wasiirada ahna waxay ka soo tageen maxaan ku raahdaa caruurtoodii waxay ka soo tageen noloshii ay ku jireen si ay u badbaadiyaan caruurta Soomaaliyeed
iyo qaranka Soomaaliya iyo karaamada Soomaaliyeed ay dib ugu soo celiyaan maraan wax ka weydiinay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo inuu qabsoomayo shirkii lagu balansanaa bisha Juun maadaama ay muddo 4 maalmood ka harsan tahay oo kaliya ayuu xusay ra'iisul wasaaruhu in uu dib u dhacayo kulankaasi inta laga gaarayo dhamaadka bishan waxa uu farta ku fiiqay in arintaasi ay ka dambeysay gorgortanka siyaasadeed uu wado afayeenka baarlamaanka waxay la tahay maalmaha aad sheegayso inuusan qabsoomi doonin dib u dhici doono bacdama hadda wixii ay galeen ba gorgor oo anagu qorshahan wadna waxay ahayd in baarlamaanka iyo xukuumad maaha shakhsi maaha shakhsi baarlamaanka sharafta leh iyo xukuumadda inta ay isu yimaadaan iyadoo aysan soo dhexgelin awoodo kale aysan soo dhexgelin annagu aan gaarno waxa dadka dan u ah shacabka Soomaaliyeed as ma dhicin saas darteed waxa khasab noqonaysa in dib loo dhigo shirka oo hadduu yiraahdo dhamaadka bishan ay noqon karto laakiin aan ku khasbannahay in shirka uu dhaco oo shacabka Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed aan dib ugu soo celino oo iyagu ayahooda ay ka tashadaan taas waa khasban cid hor istaagi karta ma jirto ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa ugu dambeyntii ugu baaqay qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed inay dareenkooda ku muujiyaan dibadbaxyo isagoo dhinaca kalena xaqiijiyay in shirkii ka dhacay magaalada Kampala ee caasimadda waddanka Uganda laga soo saaray in muddo 1 sano ah loo wada kordhiyo hay'adaha dastuuriga ah ee dawladda Soomaaliya